waaga bari ninku xumeeyay oo tiraahda allah dumaraw ninka fakhriga ah guursanina na hablaan idin la hadlaya taasoo diin ma ra'yi baan ku hadlay ka noqonaysa soomaad garan mid kale ilaahay ma oran fakhri haddaad ka cabsataan guursada dadka faqiirka isu dhisay ilaahay ba hodan ka dhigi doona miyaan oran yaa xagga laga keenay tan waryaarheen war sheekh shaantay waan ogol lahay waa rag isagu hadduu nacaayo iyo hadduu cid kala duqeeyaba waa raggii dunida lagu aaminay laga xisaabtamay maalinta qiyaamo jidka siraad loo wada fadhiisanaya ilaahay ilaahu uu naxmeeyay nooga magdhaw laakiin naaga yaa halkee loo raacaya iyadii baa mas'uul laga yahay ama qabri ama guri ha ku jirta baa leeyahay hadalka dumarku waaba cawraba ilaahay baa kitaabkiisa ku sheegay halkee lagu arkay qof culimo sheeganaya oo qayliya oo halkee lagu arkay anu gabadh caroonaysa oo calool xun baan arkay oo murar dilac ragu ka hayo laakiin haddana ragana ay leedahay naayaarheen 5 sanadood baad sheekaysanayseen maxaad u sheekaysanayseen lababa halkay ku heshiisay iyaga khusaysa hadday guurta dadajistaan iyo hadday muddo sheeda iska eegtaan waa halkeeda mid labaad ninka dibadda ku maqan duqeynaysa aad leedahay maxaan ku raadayay naagta halkan joogtaa sidee ugu samraysaa arrimaha afkaagu saas u weeka miyaanad maqal yaa daayuhu ma arkaan kolley qof meel dheer ka jiray dambaalada soo diro dhagaha uniga la soco miyaanad maqal waxaan ku iri diinta dadka looguma gabado waxa weeyaan naar baad ku galaysaa mid kale annagu culimada Soomaaliland ee dumarku leeyihiin waa sheekh ina aadan siiro nin naagta aan ina aadan siiro daba fadhiisanaynay wallahi billahi xabsi baad galaysaa naya dumarka ayaa ku xareeyay naya dumarka waxba iska noqdeen meel cid walba iska xareysato hablaha yareed waxa weey jacaylkiina ka weyn ciddad la heshiinaysaan ee guursanaysaan fakhriga ugu macaan nabi maxamed kii intuu caawdu ku seexdo dhinacaas oo dhan ay kaga sawirmaysay markuu toosamiyaan kii bagiisa iyo beerkiisu isku dhageen ee maalintii khandaqii dagaalka islaamka ee uu فارس سلمان الفارسي ولها خندق بقى نقدر شرنا نقدرنا كأشياء أوجد هالكادق حكوا حرميانو هين يا كي دمر كإلهي وهبي يميانو هين دمر كإنانو يرى بكبحين جب كبحين نفتي وده أيوه هبي يمان هين كي أنت إناني أعتمد أي ترى رسول كإلهي ونفتي ده كوه هبي يمان هين رسولك محولو هيست هالكاد تاريخ دي رسولك هالكاد كمرت نما وحبا كادمان نيار هنا أنا بحشون يو وحن لها dadkii baa tawaqisay nayaah oo xageed sideed yeeli doonta Allah nayaah ma faadma ku dayaadistiri faadma diinta kuma gabato waxa weeye wixii fikirkeeda ah iyo anaaniis dunidan kaga samaysaa igu soo biir baan ku yiri dooda hadaad u baahan tahay halkan aan ku haya qaar sida kuugu miisa Soomaad garan iyo qaar kale oo jawaaba oo yiraahdo hooyada daa oo hadana yiraahdo dayn mayno islaanta afkeeda ha haysato ciidankayga saaxiib ku soo biir laakiin dadka ku wareerin waxa la yiri ha ismoodin waayeel ha wareerin dumarkana yaa ha ismoodin waayeel ha wareerin dumarkana miyarad maqal saakawani baatiri weydaysay saake taakawani baatiri weydaysay saake waxaan anigu mudaniyo waqtigaad adigu dhiman midna kama warhayside hayga wabi nasiibkayga na wadanka san noogu dhismo quruxda badan buuqa ku soo dhex tuurin arada reer Soomaaliland wiilal iyo gabdho bale waxa jacaylkeena ka weyn isku guursada Soomaad garan